shirarkan muddooyinkii dambe ka socday magaalada Cadaade ee xarunta baarlamaanka Galmudug oo lagu heshiisiinayay beelo hore ugu dagaalama degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu guuleystay in la soo afjaro colaadda dhextaala beelaha waxaana dhinacyada ishayay ay kala saxiixdeen heshiis nabadeed. munaasabada beelaha ay ku kala saxiixanayeen heshiiska ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin hore xilal uga soo qabtay dawladihii soo maray dalka, odayaal dhaqan iyo sidoo kale wasiirro ka tirsan Galmudug. Cabdi Takiya Faarax oo ka mid ah waxgaradka reer Cadaado ayaa ugu horreyntii goobta ka akhriyay qodobada ay ku heshiiyeen beelaha colaadooda la xaliyay. reer Xaaji Salaam markii dhibaatadaas si qoto dheer uga fiirsadeen ayna u saareen guddi halka soo gaara waxay u kala qaadeen arintii laba qaybood oo kala ah dhaqan ama dhiig dadku u yaqaan iyo dabaqo waxayna go'aan ku gaareen sida soo socota. qodob koowaad dhiig ama dhaqanka waxa Reefiqi Maxamed dagaaladaas uga dhintay 33 qofood. dagaalkii Xaraale aagiisa Reefiqi Maxamed uga dhintay 33 qofood. dhammaan diyadaas 4 qofood iyo 29 qofood xuquuqda halkaas ku qoran oo qof walba ay reer Xaaji Salaam ka soo qaadeen dhammaantood waxa garab ka saartay oo bixinaya reer Xaaji Salaam. halkaas waa dhiigii ama dhaqankii. dabaqada inteeda badan dabaqadii la kala sheegay hadii dib ka dhaca meel dabaqooyin badan iyo eedo badan ayaa ka dhaca. eedahaas intoodii badneed reer Xaaji Salaam guddiga u saareen waxay ka soo qaadeen waxba kama jiraan ama gambiga ka soo qaadeen. odayaasha labada dhinac ee heshiiska la kala dhex dhigay ayaa u mahad celiyay cid walba oo ka qayb qaadatay heshiisiintooda waxayna sheegeen inay ka shaqayn doonaan nabadda dadka iyo deegaankooda. anigoo ku hadlahay dadka aan matalayo codkoodii xusuus gaar ah mahad leh baan u celinaynaa reer Xaaji Salaam. waxaan mid khaas ah u celinaynaa guddigii farsamada oo dhibka badan oo gaarka ka maray arrinta ka soo maray iyo qalqaaladii bilowgeeda lahaana waxaan u celinaynaa mahad gaar ah. wax badan oo macnaha dhibahana laga soo maray miskax badan maal badan maalmo badan baa hadda nagu khasaaray intii iyo ka badan hadda diyaar baa reewaga u yihiin aan heshiino si dhib aan u heshiino. waxaana loo soo jeediyey wax ilaahayna raalli ka yahay annaguna aan raalli ka noqonnay. ilaahay weynaa maahane aadana in laga heli karana laga wada heli kara aanan marayn ayakuba waadana waxa maanta reer Xaaji Salaam yeeleen waa noo danqadeen dhibaatana soo gaartay. ilaahay baa mahad iska leh ayakana mahad waxa ka gaarto. Sheekh Cabdulqaadir Cali Cumar oo wasiir arrimo guud ka soo noqday dawladda ku meel gaarka ahayd iyo Cabdi Faarax Jaamac oo ku dhiisay xildhibaan ka soo noqday dawladihii ku meel gaarka ayaa ku baaqay nabadda dadka walaalaha ah. haddii laga soo laabtay wax fiican waaye aad iyo aad u fiican tahay tolow codsigeena waxa weeyaan arrintaas wixii dhacay waa dhaceen laakiin waxa dambe aad iyo aad in loogu dadaalo inaad adinkoo caafimaad qaba oo wada socda inaad beeshii ku baxdaan oo ma garanaysaa ceebta iyo dhibaatada dhacday oo adduun iyo aqoonidna aan wanaagsanayn inaad dadkiina u horseedaan oo hadda ka bacdina aysan dhicin wixii horena ka warwashaan. ugu dambeyntii ayaa goobta waxaa ka hadlay wasiirka dastuurka iyo dib heshiisiinta dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdi Colaad. wixii dhacana waxa weeye kugu dhimay iyo ka dhimay intaas inay ku ekaato dadka la dhex maro nabadana loo sheego intaasan ku baaqaya. beeshan hore ugu dagaalantay degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa isaga dhintay dagaalkooda ilaa 33 qof waxaana bixinta diyada qaatay dadka reer Cadaado oo garwadeen ka ahaa heshiiska lagu dhexdhexaadiyay dhinacyada hore u dagaalamay. Maxamed Maxamuud Owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.